horta waa salaamaya meel walba ummadda muslimka ay joogto waxaan maqlay inay dawladda Soomaaliland leedahay waxa la dabagelayaa amran hooyadeed baa la soo xirayaa deherkayga ku wareegayaan. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. asxaabtada qaaliga ilhaantiin meel kasta adduunka ka joogtaan waxaad leenahay soo dhawaada kanaalka subscribe noo saara soo kale muuqaalka noo like gareeya oo share gareeyo la wadaaga asxaabtina fikriya aragti waxaad ka qabtaan muuqaaladan soo galan halka aragti wax jeclaan isla markaasina xaq oo soo gurabtaan dabcan muuqaalkaygu wuxuu daaran yahay xaq hore aad ku soo aragteen ciwaanka teetanka hore iyo sawirka xaq hore yaala ayaa markaasi hordhac idin ku filan dabcan muuqaalkaygu wuxuu daaran yahay in kulli arrin barihi ugu dambeysay يعني براه بالشدة يا دو هاي ستي أو أحد أرن إن المجال ده هرجس له قدلي أو أنا جموجة سوين المريه وقد بسيط دات كفولي أو أنا مرور بموضوع عن سمع لله وسوق قد بيو هدي أنا شل سوق قد بين يعني ما أنت هو سوق قد بيه طبعا سبته سوق قد بين يا واحد إن أنت رنتي دي الشيء إن أنت عيا سوا هذا الشيء أو رنتي أفك فرتي أو رنتي قرية بدن هذا لب بدن أو يا دو ترى بدن مركزي براه بالشدة كسوط بعد طبعا waxaan jecelahay muuqaalkeeda inaan wada daawano kadibna bal aynu wixii tala iyo tusaale iyo wixii aan anigu ka ogahay aan markaasi ku darsado ee la daawada asxaabi waa salaamaya meel walba ummadda muslimka ay joogto waxaan maqlay inay dawladda Soomaaliland leedahay waxa la dabagelayaa amran hooyadeed baa la soo xirayaa deherkayga ku wareegayaan horta anigu dawladda Soomaaliland waxaan u sheegayaa inay aniga maalinteedii aan mid ii qabanin oo aan 20 casho aan saa u qaylinayay oo meel kasta kacday meel kasta ولا لهذا عدي وحنا سميسي فالكم بلوضي إن عنك سمعنا اللي يسكدلو إن محايا هتو قبيلة يسكدلو إن فيديو يسكدوبو أو برها بس سالو ويا عيب بلوضي هلا سواقبته أنا قلنا برهان قبي وحكستو أنت السنة فده حد بان قبي مركا أنا جو حقيقة قبل ويان ما أنت أنا لبعتك عشو أن سوقي أنا مالك استتسقي أنا من اللي قبلنا أنا إني ما تتجوري كم يراستان أيدهان هو يضرب حرينا معها أنا وان سكينيا هذي عدي وحاسة ما يصير أي كينان. أوكي وهو دعوتين طبعا وح شعله هنا درجتين هرتي إن أنت نقابك واحد ليسو مركز أركتو أدعوت كده أدو دقيقتين تروحتو كلي الرياض بدن أو أدو بدن أو جرأة أو أدمودس إن يجركوا تاجن تهاي أي واحد ليسا أو بدن أنا جا تدكي الدلي المجالات اللي سعانود ودلي محل وجه اللي وعي محل سوق قبون وعي محل وجه اللي ودي دولته تحس أجا تربى تحس وجر حق ويقول هذا إن لا يحصل لكن كلي وحلري أو ذا دعمت سأكل سريان بالله كلا قرآن إن أنتن هرتا مقالة الله سبحانه وتعالى يقول لي فلوينا ولا قدوبي حق بين يقول هذا إن لا يحصل حق بين يقول هذا إن تذكي دم بجاس كيستي مقالة الله سبحانه وتعالى إن لا سوق قبته أورنت شرعي قالوا هركن حق بيقول هذا تحس ويسلو بدو أكسون هاي لكن تمشى تالا إن أنتن ولا ألانا أي خلط كيو لبعض هذا يعني أي دتك أوجا أركان بواحد هاي يعني واحد سميسي واحد عن هرا لو أرج إن يعني لا سمعيه وبراه بالشدة كعصب والسوشيال ميديا كعصب وبالشدة الصومالية دحدة كعصب أو قف اسكو مجا يهندرتي أن أدلية تاسي سميسي taas bay samaysay ta ugu weyn ee lagu haystaa inantan dhibaatada iyo runta hadalhaynta badan runta ay ka soo gaadhay waa taas Soomaaliga iyadoo way garwaaqsan tahay oo waxaan dareensanahay oo aan ogsoonahay inay ogsoon tahay in khalad cad oo bareer ah oo gaf ah oo aan yaani laga aamusi karin ay samaysay Soomaaliga waayo qof markuu dambiile yahay runtii dembigiisu uu cad yahay geed uu ku qabsado ama geed uu ku xuqmo waayo inantan kale aad iyo aad bay dhibaato u geysatay inan kale ani ahaan labaduba waa laba hablood oo walaalahay ah laba hablood oo magac iyo ab iyo isir baan wadaagno Soomaalnimada midaysay labada midkoodna ma jeclay midkoodna garabka saarmay midkoodna aniga eelka dhinaca ima galay laakiin aad waxaan uga naxay oo aad iyo aad ii damaqday aniga runta fiican ilaa garay xalama qaaday dhacdadii foosh xumeed ee dambe ayaa aniga si gaar ah ii damaqday sababtoo oo ah waxa igu damaqday inaan aan waxkii ay geysatay dib ay geysatay waxba aan oo social media la socon inta la iska kaxayso la iska soo dilo aniga taas aad ii damaqday walow inta kale dhibaatadeedu ay dhibaato xoogan hayd laakiin iyadu dadku ay ku aaneynayaan in iyadu dhibaatada kasbatay oo runtii dad kibir ay ula tagtay laakiin kibir la'aanba intaana waa laga gardarnaa
dowladaba waxaan rajeynayaa in labadii hawloodba iyo labadii barnaamijba ay gacanta kusoo dhigtay oo ay yani raadinayso labadii dambi ee laascaanood ka dhacay kii magaalada Hargeysa ka dhacay dadkii geystay falka ka dhanka ahaa inay raadinayso ayaan aad iyo aad u rajeynayaa oo waliba ku hanweynahay oo aan leeyahay waa leedin maqanyay hablo adigana inantaa kale dambiga geystay magaalada Hargeysa ku geysatay adiguna runtii dadkii ku geystay dambiga iyo dhibaatada ciidanku ku raajo jooga meel wuu raadinayaa waanu soo qabanaya sharcigaana la horkeenaya adigana sidoo kale waa lagu raadinayaa waayo dambi baad adiga laftaadu geysatay oo qof dambi la abaatay oo qof baad dambi ka gashay qof baad sumcadiisa ku ciyaartay sharaftiisa ku ciyaartay cirdigiisa ku ciyaartay jirkiisa ku ciyaartay oo social media horkeentay adiguna taasaad samaysay marka si aan waxan oo kale dib aan ugu soo noqon waa in bulshada reer Somaliland ay ka waantoobaan dhibaatada horta leh ee baraha bulshada ku soo noqnoqonaya ee maalinta ka dambaysa heblaayo war anigaygaas ka hadlayay ee runta fiican ee mawduucyada ka soo sameynayay ba cayda iyo aflagaadada commentiyadii gadacaysa wallahi la yagu aan ku qabano waan ku dilaynaa hayaay war hada qof islaam oo dambi u geystay ma jirto waxa laga yaabaa mawduucyada markan ka hadlayay inaan si sensitive uga hadlay oo dadkii dhibaatada geystay aan runtii aad ugu yara dhigay taas laga yaabaa taana qofku haduu wax ku sheego waxba ku tarayta haddii marka $10,000 ku siiyo oo aan waxba ku sheegin $10,000 berito way ka dhamaan laakiin hadalka garawshiyaha ee garta ah ee waanada leh ee ruuga tusaaleynta leh ee wanaagsan ee dadban ee aan ku sheego kuwa wad ku dhaxal maraysa oo wad ku meel maraysa waxa laga yaabaa kelmadaas inay weliga ku anfacdo laakiin lacag aan ku siiya berito way ka dhamaanaysa taasna anigu aaminsanay anyway programkayga ma jeclina ku dheeraado war ilmaadeerayaal war horta waxaan ku walaalowday أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أي مركو كوات كولا وطن الإسلام أي نهاي مركل بعد Soomaali oo diirkan iyo dhaqanka iyo diintu midaysay bayno nahay maalintu Ilaahay soo gooyay baraha bulshada muuqaalka ku horeeyay ku sheegay waxaan ku hadalaa dadda islaayay dad baa dhibaatada geystay war maxaa inoo diiday dadkeena dhibaataysan baahida yani hayso maanta saban kulul baa lagu jira saban foolxun baa lagu jira abaara dalkeena haya inaynu ka qayb qaadano dadkaas iyo dhibaatooyinkaas iyo aafadadaas dhacaya inaynu dadkeena wax tarno maxaa diiday afaynu ku darno adin aan ku tarno hadal aan ku tarno laakiin inagiiba isku mashquulsan Soomaal garan waxaan ka hayay yani ma sayr oo bariwisi baraha bulshada joogtay waxay ahayd wiil raaxa joogta ku dabaalataa wabi maba oga waqtiga dhacay inaguna waqtigan iyo dhibaatooyinkan iyo aafaadkan socda war iyo wacan ma hayno وسك حياتنا السوشيال ميديا سنسك يعني هذين وعنا ونعبنا هذين وشرابنا وقتنا قادنا إنه ودنا معين كتشرنا لكن ده كان دباتوي كيو يعني مية يديجانا ده وشيء ديجانا ورجع إلهي بتاعي إله هو يات حاجات بيأذون تمرسك هاي تاعين إنه قلت تجعل بينه دولتي يمشكلة ده كفرنا بل كان فكرة الرمي أنا ورجع حكاينا وافج والله مرحبا بين وسعنا وريد الحبالة قدام قرب ولا دعاء هدي أي حمانتا يلي بعتذر كمان توب وين ما أنت مالين أنا هين بينه جراندونا أنا وي برنامج كي متشالين كل رات وردولت ودي بعتي سنتهاي ورأباري قرمت بيه في النساء وربشة دي بما تبعنا وربشة دي بكون مشغول سنتسي وحوتر لا ما مين مشغولنا إنه ونا دي بعتوي بين كهور سيرنا مسئنا على رود دي بعتذر يو قرمت داس عبارة هي لقبصنا إنه ونا دولت بربر كنا استعنا ده كنا إنه يعني مجال ده كنا يا بلا بدا قان بان إنه هرجع عادي أدنى سنتين بتشعل برنامج كينا كل هذا تاني مقال كنا كلنا يقول لك ورد هذا أو يدينا هرجع مرة تاسو كارين سبسكرايب كنا كنا صارا مقال كنا ولا كريه وشير قولوا له ده أصحابنا فكرة ياركتوا حياة كقطع مقالنا سوق لنا هرجع ياركتوا إسلام مركز حاجة وصلنا قريب وحنا هيكسن إننا بقولنا سبسكرايب قارنو كقب قاعدة هي اللينك عن كنت جينا بقول كون سبسكرايب عادي أدنى سنتين guys